liibaan mustafa xasan adigu ku soo dhawaanay telefishinka Universal ugu horeyn waxaad ka warbixisaa safarkaadii ku aadan dalkan Mareykanka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ummadda Soomaaliyeed meel kasto iga daawanaysiin waan salaamaya gaar ahaan deeq wariyaheena man salaamaya safarkaygan aan ku imid dalkan Mareykanka waa safar caafimadeed buu ahaa marka ugu horeeya marka labaad waa safar aan dadka ugu mahadnaqi doono hadii ay beedhaado waxaan soo gaaray magaaladan Madison ee gobolka Wisconsin oo hal caafimadeedkaygu uu ka socday oo maantana igu dhamaaday oo sanadaas soo socdan uu ka socon doono hadii ay beedmo liibaan sidaad ogtahay Soomaalida inta badan way ka warqabtaa wixii dhacay dalkani marka maadaama caafimaadkaada u imaaday maxaa ku soo galay maanta alxamdulillah waxa ii suura galay in aan okiyaale leexiro amba waxa la yiraahdo muraayad in halkan dusha sare kamarad ku wadato sida videoga aad ku daawan doontiin aad arkaysiin oo carabka wax lagu arki doono oo technology ay wadanada horumaray ay gaadheen oo carabka wax lagu arki doono inta ay indhihi kale ay soo noqon doonaan hadii Ilaahay yiraahdo muuqaalka marka adigu waa tijaabisay nin waxaad ahayd awl indhihiisa ay caadi ahaayeen wax arki jiray bal hadda maxaad arkaysaa markii aad okiyaashaas kale aad xirato dadka ma dareemaysaa bal dadka kale ee Soomaaliyeed kuwa indhaha leh iyo kuwa indha la'aantaba bal sharaxaad yar ka bixi okiyaashani maxay ku soo kordhisay noloshaada alxamdulillah horta marka hore waan indha qabay alxamdulillah ana qadar baa dhaco maaragtay waan indha beelay oo mugdan ku jiray Ilaahay mugdan ma galiye waxa weeyaan in qalabkan cusub ee leexiday aad halkan videoga aad ka daawanaysiin waxa weeyaan waa qalab waxa weeyaan moogtahay in qofku uu carabkiisa uu wax ku arki doono carabka wuxuu ku arko iyo maskaxda uu tabinayaa oo hab kale iyo wax arki doona aad iyo aad bay nolosheeda aniga kow gaar ahaan liibaan ay wax igu soo kordhisay ummad kasto Soomaaliyeed iyo ummad kasto islaanana way anfacaysaa baan leeyahay moogtahay qof kaste oo madowga ku jira oo iyaan leeyahay aad iyo aad bay u anfacaysaa hadduu xanuun indhaha kaga dhacay haday bambaana la qaraxday iyo hadii waxyaalo kale ay kaga dhaceen waxa leeyahay munaafacaad weyn iyo u leedahay marka okiyaalaha la gashado inta qof ay ku hor joogto waad dareemaysaa waad arkaysaa in halkii ka xigana dareemaysaa koob iyo hadduu ku ag yaalo falaasad shaaha waxaasoo dhan waad ku arkaysaa socodka macal xataa waad ku soconaysaa sida aad videoga uga daawanaysiin socodkiina waa lagu socdaa marka waxaa leedahay marka suulida rabto oo kale ama meel aadaysid ama aad jidka aad soconaysid waxaad noqonaysaa qof isku filan oo kaliya socda qof aad iyo aad isku filan oo kaliya socda baad noqonaysaa inkastoo aad la mid haanayn kii indha qabay ee ordayay adigu wax baad ka gaabini laakiin waad soconi waxaad ka bixi in bilaadanka maaragtay qof qacanta ku qabta iyo amba aad guri aad ku dhex jirtid intaad aad indha laadihid oo dhan taasaad ka maarsamaysaa waad soconaysaa kaliya baad socon ayarna waad socon si qoyara baad u soconaysaa laakiin arinta kale ah in filmaanta fiirsato kale amba TV-yada kale aad fiirsato kale wali taas lama gaarin inaad filmaantii fiirisay wali taas lama gaadhin laakiin way soo socotaa sanadaha soo socda imikadan ba 2 bilood kadib mid kameradan mid ka daran ayaa soo baxayso ka sii haboon oo ka sii fiican aan u jeedaa 2 bilood kadib haddana sanadaha soo socda waxa soo bixi doona mid aad ku daawan doonto videoga sida qofka kaleba ugu daawado maanta oo laakiin horumar aad iyo aad la gaadhay on aaladii internetka sidaad adigu isticmaashid wariye deeq anaguna ku gula isticmaalayo hadii aan si xawaara aan u dheereeninba waxa kale oo noo sheegtay in qalabkani hadda adiga aad tijaabisay dad badan waxay isweydiin karaan marka qof kasta oo aan maanta aan waxba arkeenin uu galan karaa oo samaysan karaa marka qiimaha ku kacaysa ilaa intee la egtay والله waxaan ku leeyahay horta qalabkan indhahoogi macana uma bedelayaan laakiin waa ku meel gaar qalab ku meel gaar horumar haddana sida ugu socda waxa weeyaan in lacag dhan waxa ku fadhidaa marka hore 10,000 beed bishii 7 discount ba laga bilaabay in la waxeeyo $5,000 bay imatay qalabkan qiimihiisu laga yaabaa inay si dhimaana hadii ay helaan dad cadadkoodu uu badan yahay moogtahay ee si dhimaana waaya adiga dalkan Mareykanka marti ayaa ku tahay yaa ka caawiyay in lacagtaas intaas la eeg aad bixiso aad maanta ku iibsato qalabkaasi alxamdulillah horta waxaan marka ugu horeeya Ilaahay baan u mahadnaqayaa ummadda islaamka oo dhan noo kiciyay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan wadda kastay ku sugan yihiin gaar ahaan jahliyada qurba joogta ayaan oran karayaa oo boqolkiiba 95 hadaan oranayn waxay ka imatay qurba joogta maanta ummadda Soomaaliyeed ee qurba joogta yaa boqolkiiba 95%
bixiyey waxaan aan maaragtay aan isku daweeyey iyo waxaan mustaqbalka isku daweyn doonaba iyagaas gargarab iyo gargaarba noo siiyey bal hadda markii aad wadankii aad ka timid dib ugu noqoto ma waxaad leedahay shalay markii aad indhaha aan ka dhacay iyo hadda markaan ku noqdo farqi weyn ayaa u dhexeeya waxaa noqonayaa qof wax qabsan kara oo shaqaysan kara ها waxaan noqon karayaa in waxa ka yimid dalkii maanta nin walaalkay oo halkan ila jooga maaragtay oo qacanta haya baa safarka ila soo galay waxaan leeyahay waxaan ku laamay anoo kaliya socda yaan ku laami doonaa hadii aaba idmo anoo kaliya socda si qoyara u socda si safety u socda yaan ku laami doonaa hadii aaba iraado qalabkan oo ejectable ah oo qalab aad ka saari karaysid waqtiga doontid dibna u xiran karaysid moogtahay laakiin carabka wax lagu xirayay sidee loo saari karaa waxa weeyaan wallahi haddaan faahfaahin saasa dheeraada sii bixiyo waxa weeyaan waa sidii nanac qoriga wixii loo dhanayay carabkaad ku muudmuudsanaysaa carabka ayaad ku arkaysaa sawirkii ku horyaalay kameradan ayaad soo duubaysaa kamaradu markii qofkii ku horyaalay ee video ka qabato carabkiiba videogu soo tuuraysaa videogina madaxu u tuuraya qofkii waad arkaysaa wuxuu sameeyay moogtahay maskaxdaad ka cabiraysaa laakiin maadaama sidii nanaciyo kale aad meel ku dhaganeen bal ka waran haddii aad liqdo maxaa dhici kara taasi waa halisteed bay leedahay deeqota halisteed bay leedahay inkastoo xarig ay ku xidhan tahay sida microphone-kaagan oo kale ee xarig ku xidhan tahay safety badan ay leedahay oo hunguriga waxa ay ku raacaynato aad iyo aad looga maaragtay taxadiray marka waxa qaaliga ah ma kan carabka lagu xirayaa qaaliga ah mise miraayada kan carabka lagu xirayaa qaaliya oo aad iyo aad waayo kaas waxa videogaba kameradan iyo okyaalahan maaha waa bahalkan carabka يا لأن صور كي هيا ما أنت الحمد لله وحي قاعدين عالمكو هرمر بي قاعدين إن ما ركتي عرب كي كسو قادان حدودي النور كا بريك أدان نون لاين وحن مقلد دونا لوجو هي كسو قاتين حدودي النور كا وقف لوجو حكوا أركابة كستوي ما ركتي دولة ده هنا أدي هرمرين تاسبان لي مكتي وحلا لقما اللي بنو ضد بدنا وحسوا دي كرانيك عن كم ده هذا قف كدوسن إن باللهين وإنديه إبر أيهين sidee ayay ku suura gashay oo kiyaal indhaha lagu xiray hadana carabku wax lagu sii xiray qofka sidoo wax u arkaya dadka noocaasi ah oo fikradaasi qaba oo aaminsan oo kaliya in indhaha wax lagu arkaro maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegay horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay in horta ilaahay baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay abuuritaankan marka hore uu bilaadanka uu abuuray iyo maaragtay hadii xubnihiisa kale kamid ah haduu waayo in xublaha kale ay buuxiyaan abuuritaanka ilaahay ba marka hore basaaska marka waxa weeyaan qofkii haduu indhihi beelay waxa laga soo qaadanaya dhigtii amba iligii amba carabtii amba qacmihii xubnihii kale jirka ayaa buuxinaya oo xubninkii isku tagaya taasa maanta dhacday in waxa dhacday mar kale oo bishii soo dhaaftay maaragtay bishii shanaad dhaweyd ina ilig wax laga arko baa dhacday oo dalka maaragtay ka dhacday Yurubta ka dhacday oo annakuna aan telefoon kula hadlay oo kala qayb galayba oo la joogay ma ilig baa wax laga arkay marka waxa leeyahay abuuritaanka ilaahay marka hore saaska in xubin ay buuxiso laakiin adii liban ahaan intii meeshan aadan imaan qalabkan aad tijaabin maskaxiyan ma kugu adkeed arintaas inaad aaminto maskaxiyan way ugu adkeed run sida maanta dad kasto ay daawanayo u oranayaan in waxan malaha ma dhici karayo ee u leeyihiin bay anagana igu adkeed laakiin inkastoo aaminsanaa inay dadkan dawladahan ay inta anagu wax kale aan ku mashquulsanahay in iyagu wax muhiimad leh oo dadka munaafacaad u leh inay ku mashquuleen ay waxana ay noqon karayso wax suurtagal ah inta Soomaalidu ay qabyaalad yanka waa reer ay weeyaan reer abtigi waa ay ku mashquuleen dadkan waxa ku mashquuleen dadkan dhibaataysan dib kasto haysta si uga saari lahayn iyo ku mashquuleen dadka kulli wadanka Mareykanka maadaama aad joogtay oo dhaqaatiirta ay ku sameeyeen alaabtan dhaqaatiirta sameeyay marka halkay ka soo jeedaan Mowgadiis dhakhtarkan imika aniga gaar ahaan igu sameeyay wuxuu ka soo jeedaa dalka Shiinaha iyo ka soo jeedaa oo halkaas uu ka yimid moogtahay in waa Mareykan iyo Shiino waxa maanta horumarkan tan aan sheegay in maanta aan sito sameeyay waxa la halkaas ka soo jeedaan moogtahay dadka horumarka gaadhay dad badan ay jira Liban oo Soomaali ah oo aan araga haysan maanta waxba aan arkeenin qaarkoodna way awoodi karaan in $500 iska bixiyaan qaasatan kuwa ku nool Mareykanka oo kale dadkaas maxaa kula talaleed والله كلها تلا هرت إتكستو أودا قربها كنول إندلا إن ماركت قلب كان أي ديلسين أي قاتن وايو مركو قفكو إندلاي هاي تتكقار بس كده دعية بلا مستقبل باتاي بلا محي باتاي وحورنا قلب كان أدبو في عيه
aan meel ku qaadno شعاع ما قوبت اوكي حضنه هذا اوكي سامع اوكي ان dad badan oo Soomaali ayaa jira oo indha la qaarkood wadankan Mareykanka ay ku nool yihiin oo awoodi karna $500 iska bixiyaan maxaa kula talay dadkaas waa dadkii awoodi karaya waxaan oran karayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee awoodi karaya ee indhala waxaan leeyahay wallahi qalabkan aad iyo aad buu nigu fiican yahay qaata cidii awoodi karayna waxaan leeyahay aan badalalkeena kaga imanay ummadda Soomaaliyeed ah waxaan leenahay dadkii maaragtay dadkeenan baa u kacayna annaka ballan ka qaadayna inaan maaragtay horumarka maanta aan gaadhnay iyaga walaalaheena aan gaadhsiino moogtahay taasaan ka ballan qaadayna ma ka fikirtay inaad noqoto qof ambassador amba danjira ah oo dadka indhaha la oo Soomaaliya jooga ama Djibouti jooga walaalaha inaad mashruucan aad gaarsiiso oo iyaguna aad wacyi geliso oo aad ummadda kale aad wax u weydiiso si qof kasta oo noqdo qof isku kalsoon oo hadda sida adigoo kala socon kara oo wax qabsan kara oo wareegi kara oo isaga isku filnaada horta markii hore indhaha laga soo tuuray malaha waxa yiri ilaahay baa maaragtay sabab u dhigay in kaaga dhigay in dadka indhaha laga soo waramo iyo ilaahay malaha adiga sabab kaaga dhigo kuugu diray waxa weeyaan maanta waxaan yidhina markii indhaha aan beelayna in maanta aan technology-gan horumarka aan gaadhina waxa igu weyn aad iyo aad deeqow inaan maaragtay dalalkeena tago meel kasta ummad Soomaaliyeed ay ku nooshahay maaragtay dal kasta ku nooshahay inaan ka gargaaro inaan tababar ka siiyo in aad iyo aad maaragtay dadkii ay nicmadan aan qabo inaan qaybiyo taasa maanta igu waajibta faradka baa isaaran waata ugu dambeyntii marka barnaamijkan yaa ka taageeraday in barnaamijkan Brainboard-ka qalabkan xidhanayo ummadda Soomaaliyeed baa iga taageeray mahadnaq aan la koobi karin baan u jeedinayaa waxaan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed ee sidaas caalamka oo dhan ka hadashay heeliyo waxaan deeqo horta igu weyn oo marnaba aan iloobi karayn on jaclaaday inaad ila wadaagtid in waligay waxaan anu aan ku aqleystay in Soomaaliya oo lacag loo diro oo hadii Djibouti la joogo iyo hadii Ethiopia la joogo iyo hadii Qurba la joogo Soomaaliya lacag loo diro qof oo $100 $200 lagu gargaarayo laakiin waxa dhacday in Soomaaliya lacag laga soo diro sidii qof Qurba joogo buka loogu gargaaro islaan baa kamid ah in lacag noo soo dirtay oo Kismaayo joogtay oo taasa dhacday ilaahayna waxa leeyahay nicmadaas iyo kalsoonida ay dadku ay gaadheen iyo midnaashaha ay gaadheen ilaahay taasa nagu wada leeyahay waxaana ay cadaatay dadkoo dhan haday isku tagaan Soomaalidoo dhan haday isku tagaan inay wax noqon karayaan ee meel la gaari karayaan taasa ay cad aniga maanta waxaan mar kale aan maaragtay mahadnaq u celiyaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool qurba joog haday Canada tahay haday Mareykan tahay haday Djibouti tahay haday Ingiriiska tahay Belgiumka anigoo iloobeen oo qoladii ugu horeeyay gargaarka ay fidisay ee tahay iyaga joogtay waxaana kaloo aan iloobeen on tacsiiraan u muujinaya ummad kamid ahayd dadkii gargaaro maanta maaragtay dhintay gaar ahaan maaragtay in ilma iftiin oon ka leeyahay maaragtay samir iyo ibaan walaalayaal